بدنا قناني قار حتى قراونا مركا والدك يا قول لدجنايا لبسنا ما أركنه كلية ضرب أبهي سند يبر ما أنا أركن والله الله بس marka maxaa keenaya qofka marka hore hadaa difaac adiga bulshada kaga jirtid laakiin hadaa bulshada inaad la shaqaysid ayagoon ka warqabin wiilkaaga arko ikhlaas ah ugu la shaqaynaysid inaad u naxariisanaysid inaad wanaagooda rabtid inaad u duceynaysid dadkii mana la hadasho qofku wuxuu barbaaraa isagoo og in dadkaan la qiimeeyo dantiisa inay ku jirto oo ilaahay ugu naxariisanayo kale waxyaabahaas waa marka kulli every xadiis oo hadda aan soo sheegay waxay la xiriirtaa qaabka uu nabiga ilmaha ula dhaqmi jiray iyo suxbada iyo waxyaabahaas taasaan dhiyo keenaysa moogta dadkan hadda Sheekh Maxamed aa sheegaysidna oo dalka Soomaaliya badda hal qaarto iyo ragga dhahaya Marooka khair ka jira dumarka ha aadaana taasna waxaan kaga darsanayaa ra'yi koobano dadka life-afka u furan yahay qaladka iskale in the first place qof Soomaali caynaya oo dumar Soomaali maxaaba chance u siinaysa oo ku hadlo ra'yigiisa waxa uu qiimo kula yeelan karaa that's a big mistake Morocco was the second country in the world oo transgender ka nimanka dumarka iska dhiga waaga hore dadkii yaqaanay si u yaqaanan ayaga u taala laakiin at this moment 2024 ka ilaa iyo 2000-nadii the millennium ku wixii ka dambeeyay waa wadanka rag badan oo dumar iska dhiga oo sida dumarka u labista ay saas tifka yihiin waa dalkaas marka tumashadana loo aado tiiba Faransiis ah marka qofka horta dadka Soomaalida dhahayo Soomaaliyan difaacina waxay siiyaan chance qof Oromo difaacaya qof Itoobiya difaacaya si adiga life-kaaga marka ka tuurtid oo qof kale laga tuuro aad tiraadiniyo waxaan ra'yi maahana waa bahdilantahay qofka asaga is dareemay moogta laakiin marka siisid qof aan wuxuu raba garanaynin oo ilan mabda'isa dhanba zero waa qofka haduu dadku yahay ka talaabsado ilan waa xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam تعلموا أنسابكم ما تصلوا من أرحامكم نصبكين نبرت أنت قرابتين نصبكين محاور نصبكين وصومالي يا مسلمة أو سنية شافعية وحواي ساس مركا قفكو وأنت زقرنين وحقلا يا ويرر ضدكي سياح أو سوقين ميسوق مركا أنت سحور وإن لسه نيو رال أو صومالي لماذا اللي لسه سوا واللي رال اللي attention لسي ومركا ومسكح عرور موقت صوماليا كعرة مروكان هذا ترتيبه وبحلان هذي ركض عاديين موقت جور هذا معها وهن لا أركو وضد يعني لا هاد لواي أو أيجي ضدك أنت إسكوي ريسين سلوين كودين ملكو جاري واي علمي مادي جنا عن برن ديني جنا برن هنتنا عن ملك جاري مركز ضدك يا هرمر جاري سومالي دي نقدم بسومري كنتمت كل بزنسية لين أنا مركز ضدك أنا كنا عماها موقت هذي proactive أو progressive people نقدام وأنا الحمد لله ده ما شاء الله ده dadkan marka badanaa waxay u badin dad qurbaha ku daahay oo dadkii ka dambeeyeen horumarka kaga horumareen dhaqaalaha iyo aqoonta dadkii maartay la midka ahaa ee isku meesha ay waqtiga soo wada galeenna si ay uga gabanayeen isu lahayn adoo taajir mar leh hal lagu arko booskoodii taagan marka maxay afka bisay kaga soo hartay iyo colaad wafad niyo intaas waa ilaahay maartay awlaada dadka waalidiinta Allah ku duwa inay soo gataan bugaagta ka hadlaya waalidnimada sida ugu fiican oo ilmaha lagu baariyo oo la qoray oo culimadu qoreen af Soomaaliga lagu fasiray marka knowledge-kiba waa meesha waxa ka maqan ma garatay marka dadka qaarna xadiis iyo nabiga markii la sheego waxay u maleeyaan in la wacdinaayo waxay leeyahay waa muxaadarada waa kuma qisada ka sheekaysan wuxuu leeyahay muxaadarada waa kuma maasanta ama sheekh uu ku dhahay sheekhnimo maaha waxaan waa life waa process waa qayb nolosha kamid ah nolosha dadka kamid ah waa oo haddana maartay qofkii fahmo oo horumar gaarayo ninkaniyo insha Allah kitaabkaas magaciisa iyo waxaan soo qaadi doonaa iyo wuxuu leeyahay number uu leeyahay dadka dhan ay ka dalbadaan mataqaana Amazon-ka Ikran Bashir waa qorta gabar la dhaho oo reer Canada oo muslim family muslimo ku dhalatay insha Allah niyo marka intaas aniga aan ka dhihi lahaa caruurta iyo arrimahan oo dhan wafaan difaaca dalkana waxa ka ah inta meel kale hadaad ku difaaci kar life-kaaga qofkii soo koro Soomaali afka ku taaga yaade meel kale ku caydhe haduu Soomaali nacibi qofku muxuu Soomaali u soo raadsanaa Soomaaliga iyo rabaa
adigii rabaa inuu kuu sheego dalkaaga xumaantiisii iyo xaqa Ethiopia leedahay meel kale ku sheegaa la dhahaa sax ayaga u tag Ethiopiaanka u tag qofka markaas wuu caburaa moogta laakiin dadkeena waxa waa iska qalbi xabxabo ayagiyaa jaanis siinaya waa la wareysanayaa ra'yi baa loo arkaa waxaas ra'yi maaha ra'yiga iyo falanqaynta waxaa la dhahaa analysiskana waa inay kasoo bixi karto waxa loo yaqaano workable assumption oo macnaheedu yahay mala shaqayn kara qofka marka anigu wax falanqeeyo falanqadayda waa in dadkii dhegeysanaya ama mucaarada ay ugu hadaan ama heli jiraan wax manfaco leh ay kala bixi karaan oo macquul ah ama dad kale ay u sheegi karaan ama ayaga ay qaadan karaan maogta taasaa la dhahaa qiyaas iyo falanqo laakiin haddii aan intaa iska soo golo aan dhaho aniga Soomaalidu waa dad xoolo ah waa dad cawaan ah waa dad saana waxaasaa batay hadda dadka sidii looga aamusayo marka way nagu fakadeen ma garad iska socdaa marka derono ma yaqaanaan Soomaali ayaga laftigooda dadka saas dhahay ma yaqaanaan ya بارك الله فيك وارنت قيبتي عن كل شيء